haddaba haddii jirkaaga ku jiraan xasad aayadan marka aad akhridid ama aad dhegaysatid ma xamili kartid amaba waxa suuragala tikraarka faraha badan leh ku celcelinta faraha badan leh aayadan inay sabab u noqoto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xasadka kaa kaxeeyo jirkaaguna uu ku caafimaado sidii horena aad ku soo noqotid biidnillahi alkariim aayadan ma jeceshay inaad maqashid aayadan waxaa laga yaabaa dad fara badan oo qur-aanka yaqaana inay hore u dhigteen laakiin maanta ayaan kula wadaagayaa si markaasi aad u akhrisatid walaalahaaga kalena ugu sheergaraysid biidnillah waxaa kaa codsanaa qura inaadna soo falowgaraysid sidoo kalena muuqaalka asxaab fara badan u datid waay haddaba maxay tahay aayadani aayadan waa aayad odhanaysa markaasi am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli ila aakhir aaya aayadda am yaxsuduuna annaas aayaddaas waxaa lagu furaa markaasi xasadka qofka ku celceliya ee jirkiisa xasadka ku jirana bannaanka ayuu imanayaa waanad ka caafimaadaysaa aayadda haddaan ku celiyo waa am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikma wa aataynaahum mulkan cadiima aayaddaas waa aayadda lagu furo xasadka asxaabtaada u sheergare qof kasta oo walaalkaa ah xataa walaalkaaga muslimka ah uu ka faa'iidaysan karaa adigana khayr iyo ajar ayaa kuu socon doona ilaa qiyaami saaca u sheergare walaaladaadana u dir inta asxaabtaada ee moobilka kuugu jirtana u dir biidnillahi alkariim waa mahadsantihiin salaam